بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا دكان هليبلا oo laga furay magaalada Oslo ee dalka Norway gaar ahaan xaafadda Greenland dukaankan waxa dukaankii ugu horeeyay Hilible laga furay magaalada Oslo waxa la yiraahdaa dukaanka magaciisa Barqadhereg waqti kasto aad timaado wad helaysaa hilibka waana markii ugu horeysay ummadda Soomaaliyeed ay ku yeelato dukaan ku yaala magaalada Greenland Oslo oo dukaankii ugu horeeyay Hilibla ee laga furo magaalada Oslo dukaankan wuxuu iibiyaa hilibka ariga looda digaaga wuxuu ka keenaysaa iyadoo fresh ah ma aha wax freezer ah waa fresh soo marka la soo qalay ayaad helaysaa hamogaanin oo ha ka maqlaan dukaanka hiliblaha ay ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway gaar ahaan xaafadda Greenland oo ah faras magaalada ee ajnabigu aad ugu badan waa Maxamed Caalif oo hadda jeer barnaamijyada ka soo diyaariya magaalada Oslo ee dalka Norway عيد مبارك ومضى مسلمين تاودن waxaan leenahay ciid wanaagsan ciidan ku gaara borosh bashiya barwaaqo iyo dalkeena iyo nabada waxaan idinku bushaareynaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Norway iyo nawaaxiga Oslo in aanu furnay dukaan weyn oo hilibla oo qiimihiisuna aad iyo aad idin qancinayo nugu soo dhawaada walaalayaal si sharaf leh idin soo dhaweynayna gacmo furan nooca miranade يا تذكروا فرنا بتكون شرتان لمروان ومضى الصوماليات من مشون فرنا عاد يا كم فرنا بتشوفوا وين هي قيمة معقولة هاوس إن صدق يا سلامسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا هل كان أمضى الصوماليات ودان ملك استيشوغان دليل دبل به عيد مبارك بان لنا هاي طلبات وحن سلام يا جارهان أمضى نوروي هيروشلا يا نوروي دافيه هذا ملك وكل نوليهين waxaan salaamayaa aabahay hooyaday iyo walaalahay oo dhan meel kasta Yurub iyo adduunka ay ka joogaan salaanta ciida ka bacdi waxaan inii yar sheegayaa in dukaan cusub oo shil gudaheeda Greenland aan ka furay oo dukaan Soomaaliyeed oo hilibla ama hilib lagu gado hore uma lahaan jirin baan malaynaya ummadda Soomaaliyeed Norway alxamdulillah inama Soomaaliya saan ugu dadaalay كان Soomaaliyeed baan furay oo ka kooban adeega hilibka xalaasha ah wax kasta oo xalaal ah ama wax kasta hilib digaag wax kasta aanu haynaa maalin farxada maadaama ay tahay oo aanu maalin ciideed aanu furay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ee reer Norway ama reer Oslo waxaan ugu bishaareynaa boqolkiiba 30 inaanu u dhimayno weekend oo dhan wixii hilib uu ka kooban yahay sida hilibka ariga maxaad soo dhaw dhinacan ka sii dub hilibka ariga oo la mistake lam from them oo lam lor leh boqolkiiba 30 tulbuuda helayaan qofkii nala soo kulma ama nala soo xiriiro noo yimaada beefka isagana sidaas leeg boqolkiiba 20 bay helayaan percenti qof kasto noo yimaada weekend ciida adxa digaaga isagana sidaas oo leeg boqolkiiba 20% baan dhimaynaa qof kasto noo yimaada weekend ciida بسم الله الرحمن الرحيم هل كان maanta oo ciid ah waxaan ku faraxsanahay in laga furay dukaan hilib xalaal ah iibinayo oo baciisuna uu jaban yahay ma iibino hilib dufan badan leh waxaan haynaa hilib nooc kasta leh macaamiishan waxaan u sheegaynaa hadii alla idmo in ay si farxad leh aan u soo dhaweynayno kundaha halkan waxa jooga wiilal iyo gabdho ku soo dhaweynaya oo si fiican wax kaaga iibinaya qiimo jaban marka waxaan jeclahay bal inaad imaataan oo soo aragtaan dukaanka magaciisa waxa la yiraahdaa Barqadhereg barqadii amaanaysa wan dhargeysa waxaaga wax ku iibso soo dhawaada Soomaaliyo idil soo dhawaada ma sha Allah روح قديدا وحاي قنصة تبك دورا وحانا هاي روح قلوعا قبيدا نولو شادتيدا مركاتا هاي روح قديدا وحاي قنصة تبك دورا وحانا هاي روح قلوعا قبيدا نولو شادتيدا
waxaanahay ruux qadarin hormiyo ku qaba tixgelin waxaanahay ruux qadarin hormiyo ku qaba tixgelin markaad tahay ruux qalbiga areenu noqdo daweeya waxaanahay ruux qadarin hormiyo ku qaba tixgelin waxaanahay ruux qadarin hormiyo ku qaba tixgelin wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay wixii qiso dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay taariikhdu haddii qorayso qaamuuska